Bismillahirrahmanirrahim. Soo dhawaada dhammaan walaalaha ku xiriirada Dr. Maxamed Cabdisalaam Cabdullaahi. Waxaan jeclahay maanta inaan soo gaarsiiyo fariin aad muhiim ah oo aan rabo in bulshada aad u waantoobaan. Fariintan waxay ku socotaa dhammaan bulshada isticmaasho daawooyinka. Si gaar ah waxaan u sii wadaa bulsho gaar ah ama dad gaar ah oo doonayo inay ku cayilaan daawooyinka. waad arki doontaa dadka daawooyinka ku cayil doonayo. waxaa jira dad badan oo doonaya inay ku cayilaan daawooyinka, laakiin daawooyinka laguma cayilo. daawada awobrisiga ama Soomaalida u taqaan awobrisiga, laakiin magaceeda qalaad loo yaqaano dexamethasonka, waa daawada ugu caansan ay isticmaalaan gabdhaha juniorka ama jiilka soo kacayo, una isticmaalaan in isku cayiliyaan si ay ugu daba tagaan asaagooda. laakiin waa daawo dhibaatadeeda leh. daawooyinka sidaan ognahay waxay leeyihiin khatar aad u fara badan, sida ay u leeyihiin effect daawo ah ay u leeyihiin khatar caafimaad marka loo isticmaalo qaab aan habboonayn. daawooyinka sida gaarka ah marka ay bulshada ugu badan tahay oo aan soo qaadanayn mid iyo labo, way badan yihiin. horta daawooyinka aad khaladka loo isticmaalo, taasoo keentay in dhibaatooyin badan laga dhaxlo iyo wax dhan waa sheegi doonaa. laakiin daawooyinka ugu badan ee ummadda muslimka ah ee Soomaaliyeed dhibka ku hayo, waxa ugu horeeyo oo aadka loo isticmaal badan yahay waxaa waaye kaniiniga loo yaqaano awobriska ma taqaano, ee loo yaqaano afka qalaadna dexamethasone. horeyna waan ugu bixiyay baraarujin fara badan oo website webpage ama channel aan ku leeyahay YouTube-ka Kasmo Hospital loo yaqaano, ayaan horey ugu bixinay baraarujin yar oo gaaban oo aan dheerayn oo ku saabsan awobriska iyo khatarta uu leeyahay iyo dhibaatooyinka uu keeno. asagoo faahfaahsan maanta waxaan doonayaa inaan bulshada u gudbiyo inuu khatar badan leeyahay awobriska ama dexamethasonka. maxaa yeelay kaniiniga dexamethasonka loo yaqaano ama awobrisiga Soomaalida caanka ku ah waa kaniini aad u halis badan. inta laga filaayo ama inta laga arkaayo in ka badan ayuu halis badan yahay. kaniinigan loo yaqaan awobrisiga, dadka waxay ka raadiyaan markay sida qaldan u isticmaalayaan, waxay ka raadiyaan cayil, balse cayil ma ahane waa cudur. waxaan u sheegaa si gaar ah haweenka ama gabdhaha jecel inay cayilaan oo aad ugu raadiyo awobrisiga, ka raadiyo inay cayil ka helaan. waxaan ku leeyahay kaniiniga awobrisiga ma lahan wax loo yaqaan cayil sax ah, ee wuxuu leeyahay cudur cayil u eg. cudurkaasoo loo yaqaano Cushing syndrome. dhaqaatiirta aad u yaqaanaan, waa cudur aad u dhib badan runtii. waa Cushing syndrome, cudur aad gacmaha ku keensawa. waxaa fiican marka dadka inay ka fiirsadaan daawooyinka la isticmaalayo. daawadan ay isticmaalayso dhakhtar ma ku soo qoray maya inaa cayilaan rabaa. okay, haddaa cayil rabto soo dhibaato kaagama imaanayso, waxaa waa kiimiko. waxaan kuu sheegay sidoo kale in uu keenayo cudur. kiimikada ay isticmaalayso jirkaagan ay u daran tahay. sidaa darteed marka dadweynaha waxaan ku baraarujinayaa mar iyo mar kale inay iska ilaaliyaan inay isticmaalaan kaniiniga awobrisiga. si gaar ah waxaa ku badan dadka farmashiyaashan ay ogyihiin inay ku badan yihiin gabdhaha yarisiga ah. gabdhahaasoo marka ka raadiyo kaniiniga awobrisiga in ay wax cayil ka helaan. waxaan u sheegaa sidoo kale in dadka u isticmaalo waxyaabaha kale inay isticmaali karaan, laakiin si ay u baahan yihiin mar walbo daawo aad isticmaalayso. guud ahaan mar walbo daawo aad isticmaalayso waxaa ku habboon inaad daawada aad isticmaalaysid kala kaashato dhakhtarkaaga. maxaa yeelay sidaan ognahayba daawooyinka la isticmaalo dhakhtar la-aanta waxay keeni kartaa halis caafimaad, sida kan hadda aan sheegayna awobrisiga. waxaa lamid ah daawooyin kale oo fara badan sida kaniiniga rifaadiinka oo aan horey uga hadlay oo aan ku sheegay Kasmo Hospital page ama aan ku leenahay Facebooka iyo sidoo kale YouTube channelkeena oo Kasmo Hospital. waxaan ku tilmaamnay in rifaadiinka iyo daawooyinka sida qaldan loo isticmaalo dhibaatooyin saameyn aad u badan ay ku keenayso bulshada. sidaa darteed marka bulshada oo walaalaheena
oo aan dhex degannahay oo aan maaragtay waxaa weeyaan ka dhalanay waxaan jecelnahay in aan wax kasta oo halis keenayo aan ugu digno meel kastana aan marsiino haddii ahaan lahayd YouTube haddii ahaan lahayd Facebook haddii ahaan lahayd social media meel kasta ay galaan waxaan jecelnahay intaas dhan oo aan ka duulaynaa in dadka ay helaan caafimaad halka ay ka raadinayaan cayilka ma jiro cayilka qaabab badan ayaad ku heli kartaa oo ka duwan qaabkan midda kaleeto cayilka macnaha waxaa waaye dadka ay raadinayaan oo ay ka raadinayaan kaniiniga awoobarisiga oo si gaara gabdhaha u badan sida aan ka warhaayo inta aan macnaha ka warhaayo oo aad xaafada inta kasoo baxaan isku darsada 2 kaniini oo loo yaqaano big power ama super power ama gold power daawooyinkan kuleel oo ishak powerska loo yaqaano power kaniini ah iyo waxay isku darsanaysaa gabadha kaniini dexamethasone ah ama kaniini awoobaris ah okay labadaas kaniini isku darsato ee isticmaasho kaniinigan vitamino siina hurdo siina way jiifanaysaa oo nasanaysaa okay laakiin kaniiniga labaad ee awoobarisiga wuxuu ku keenayaa dhowr shay Cushing syndrome Cushing syndrome maxaa tahay waxay yeelanaysaa qaabka dibiga oo kale kuruska dibiga yeelanaysaa waxay u malaysaa inay cayishay waxay leedahay sidoo kale dhibaatooyinka ay leedahay waxaa ka mid ah in ay maaragtay waxaa weeyaan gabadhii yeelanayso lugu miiq ah ama lugu yaryariis ah lugu khafiif ah oo laga yaabo haddii ay daawadaas sii wado in si fudud ay u jabto maxaa yeelay sidaan ognahay kaniiniga awoobarisiga wuxuu keenaa lafaha inuu jilciyo taasoo keenayso kaniinigii awoobarisiga ahaa maadaama uu lafaheeda jilciyey in si fudud calciumkii lafaha ku kaydsanaa ay kala daataan si fududna ay u jabto laftii marka waxaan kula talinaynaa maadaama uu keena dhibaatadan aan sheegayno lafihii wuu jilcinayaa wadnihii wuu dhibaataynayaa jirka stress oo gelinaya sokor oo keeni karaa maxay la sokorto sheeg markii qofku uu isticmaalo dexamethasone sokortiisa way kacaysaa ala tool marka waxa weeyaan dhibaatada ugu daran waxa waaye markaad isticmaashaba adiga gacmaha cudur ku raadsaday marka dadyowga isticmaalo iyo dadka ka warhayo waxa laga yaabaa inaad isticmaasho adiga daawanaya hadda videoga soo gaaray waxa laga yaabaa qof walaalka ah ama gabar walaasha inay isticmaasho waxa laga yaabaa gabar daris atiin ka warhaysid inay isticmaasho intaas oo dhan waxaan u baahannahay in iska kaashano in aan bulshada gaarsiino dhibaato inuu leeyahay awoobarisiga daawo muu ahan cayilka in cayisho daawo kugu ma aha ee wuxuu daawo kugu yahay wixii dhakhtarku kugu qoray awoobarisiga uma isticmaali kartid inaad ku cayishid waa in fariintaas qof kasta ama bulshada cid kasta oo maaragtay waxa weeyaan gaarta inay sii gaarsiiso qofka kale oo ogeysiiso in awoobarisiga uusan ahayn caafimaad awoobarisiga sidaan wada ognahay waa dhibaato badiya sida aan sheegnayba waa cudur oo la yiraahdo Cushing syndrome waxaa laga yaabaa qaarkiin internetka aad taqaaniin oo aad gali kartaan xilli walba waxaad sameynaysaa Cushing syndrome waxaad gelisaa Google-ka kabacdin image ku dhufo waxaad arki doontaa foolxumo dad soo bixi doono dad jiran oo tuur leh oo waji muufa leh oo lagu miiq leh oo calool weyn leh ayaa soo baxay taas macnaheedu waxa waaye way cayiliin oo qurxiin miya qurux ma ahan cayil ma aha waxaan leeyahay aniga si gaar ah dadka isticmaalo waxa ay raadinayaan waa sawirada aan sheegay qof calool weyn madax maarta waxa ay sheeg waji muufa leh oo wajigiisa macnaha oo wareegsan yahay oo buuf oo yahay tuurtiisa tuurdibi oo malaysid lugihiisa miiq yihiin haddana aan ka bixin jiro maxaa yeelay dexamethasone waxaan kuu sheegayaa wuxuu keenayaa difaaca jirka inuu hoos u dhaco hergabka baxay jirka bixayso maanta dhan tabardarro ah sheeganaysaa wadna garaaca sheeganaysaa dhibaata waxaan oo dhan wada waxaan ku aragnay waxa aan sheegayo waa dad iigu yimaaday isbitaalka oo dhibaatadaas qabo markaan wareystidne oo aad diagnosis Cushing syndrome markaa gaartid waxay ku leeyihiin okay maxaa isticmaashaa dhahday waxay ku leeyahay awoobaris la isticmaalo ka badan isticmaalo waxay u maleeyaan awoobaris inuu caadi yahay laakiin waa halis badan yahay gabadha daawanaysa ama qofka daawanayo waxaan u sheegayaa inuu fariintan gaarsiiyo qofka waa fariin culus ma aha fariin sahlan waa in bulshada loo sheegaa in kaniinigan
dhibaatadeeda leeyahay waa in laga dhaadhiciyaa weliba qofka haddii aad u sheegto waxaa laga yaabaa mararka qaar inuu fududaysto laakiin waxaan kuu sheegayaa inaad qofka ka dhaadhiciso una sheegto in uu iska dayo isticmaalka qaldan ee daawadan maxaa yeelay haddii daawada aad isticmaasho adiga oon dhakhtar kuusoo qorin una isticmaasho qaab qaldan sida dadkaan sheegin oo kale waxaa ka imaanayo in adigina aad ka dhaxasho dhibaato kale annagoo wada og guud ahaan daawooyinka inay ka samaysan yihiin kiimikadaasna jirka ay wax yeelayso kiliyaaga wax yeelaysaa beerkaaga wax gaarsiinaysaa jirkaaga una u ficnayn laakiin si gaar ah marka la soo qaado haddii aad kaniiniga ama daawada aad qaadanayso halis gaar ay leedahay sida dexamethasonka oo kale ama ababrisiga oo kale haddii ay halis gaar leedahay waa dhibaato kale oo adiga kuu soo hoyatay sidaa darteed marka daawade waxaan jeclaan lahay oo aan fariinta maanta idinkugu soo gudbinayaa in aad si gaara isaga ilaalisaan daawooyinka ugu daran ee uu ka mid yahay ababrisiga waxaa kaloon ku darsan lahaa hal daawo oo muhiim ah iyadana aan ku dari lahaa maadaama baraarujintii daawooyinka aan ka hadlayno khatarta badan ee keenaysay daawooyinka sida caadiga waa dilaa daawo haddaa maqasho drug haddaa maqasho ama chemicals oo laisku daray waaye oo keenayo qofka in ay wax ka dilaan ama wax ka daaweeyaan okay haddii aad badsatana keeni kara inay adiga ku dilaan inay ku dhibaateeyaan okay sidaa darteed marka qof kasta oo maarata waxaa weeyaan daawanaya videoga waxaan jeclahay in uu dadka la sii gaarsiiyo si bulshada ay ugu badbaado dhibaatada kaniiniga labadan ku darsana waxaa waaye kii kale waxaa waaye dexamethasone iska ilaali waxaa kii hore dexamethasone la dhahaa wuxuu ku yimaada 0.5 miligram asagoo waxaa jira dexameth lahaayo 1.5 ku yimaado oo tab ah waxaa kaloo jira asagoo injection 4 miligram ku yimaado ilmaha yarka inta badan siyaan waana khalad inkastoo maarata dadweynaha la socday videogan waan u mahad celinayaa iyo inta uu gaari doonaba waxaa kaloo jeclahay in bulshada mar walba la gaarsiiyo fariimaha aadka muhiimku ah ee bulshada anfacayo kana reebayo waxyaabaha dhibaatada keeni karo ugu dambeyn waxaan kusoo gunaanidayaa warkaygii dheeraa ee waqtigii yarka qaatay aan badnayn si loo fiiriyo waxaan kusoo gunaanidayaa waad ku mahadsantihiin daawashada videogeenan waqtigii qaatay sidoo kale waxaan soo gelinaa videoyada channel kale oo loo yaqaano Casmo Hospitalis oo uu leeyahay isbitaal Casmo anigana waxaan ahay dhakhtarka ka shaqeeyo Casmo Hospital ama ka howlgalo xarunta Casmo Hospital oo ku taalo Xamar Jab qofkii doonaynayo waxaan diyaar u lanahay si lacag la'aan ah inaan ku daaweyno ilaa haatan waxaan ugu talagalnay inaan bulshada ku caawino wax cilmiga ah ee Ilaahay uu baray idinkana waxaan rajaynaynaa in dadka u baahan inaad gaarsiin doontaan isbitaalka si ay u yimaadaan uguna faa'iideystaan waad mahadsantihiin dhammaantiin mar kale wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh